barwaaqi odan la gaadhoon bogsanay bogsanay allele waan bogsanay 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 allele waan bogsanay elloy eliyaloy bogsanay waa badhaadhay dayaci wagaa soo bidhaane bishari waa bilqayre بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته وصلى اللهم على سيدنا محمد نبي الزاهد رسول الملك الصمد واحد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأني شرفت له أرزاق شرفت له جامعة ومدة صوماليات أدبا وماسنتين كصغابيل وعنا 10 كانت كصغابيشين إن 10 كان و10 تاريخ إن 10 ديني هوري كي جغرافيك إن هدان سوسينو جغرافيك وحان كسو هذلناي dhulkanaga inta uu la eg yahay waxaan ka soo hadalnay badeena yani dhirkeedu inta uu la eg yahay oo maanka in lagu hayo loo baahan yahay 3333 kilomitir inay ahayd webiye inaan leenahay oo laba webi ah ee la kala yiraahdo Shabeelle iyo Jubba oo horaan ugu soo sheekaynay webiga Shabeelle dhirkiisu inuu yahay 1500 kilomitir webiga Jubbana inuu dhirkiisu yahay 800 kilomitir balse waxaa ballaaran oo weyn webiga Jubba marka insha Allah dhul barahana inuu maro dalkeena Soomaaliya oo ka maro magaalada meesha la yiraahdo Singuni oo meel u dhow magaalada Jamaama agteeda u dhow degmada Jamaama ay u dhowdahay aad ugu dhowdahay waa gobolka Jubbada hoose waa dhul baraha halka uu maro maanta waxaan ka sheekaysanaynaa 10 kanagan taariikhda oo in yaroo kooban bacdima waqtigii uu iska yahay waqti la wada daalan yahay idinkuna aad daalantiin innagana aan daalanahay daalkanaga anaga waxba uma aragno kiina ayaa maartay hadii gooraale inoo daran waayo ubadka iyo waalidka kol walba waxa walwala waalidka ayaa walwala oo ubadkiisi la walwala marka in yar tixdaa yar ku raaciyo cayn sana calulgubaado sidoo caynka ku gube yaan bacagta ii dalooshaa marka insha Allah 10 kanaga bilaabanayna maanta taariikhda aan ka hadlayno waxay tahay taariikhdii halgamaagii geesigii Allahu naxariiste Ahmed Gurey imaam buu ahaa wuxuu ahaa suldaan buu ahaa wuxuu ahaa hogaamiye wuxuu ahaa abaanduule ayuu ahaa hadaba Ahmed Gurey magacyada dadka u kala bixiyaan iminka qof carabtaasi ayaa u badan oo waxa weeyaan niman qoraa maartay waxay sameeyeen waxay yiraahdeen Ahmed Ibrahim al-Ghazali ayuu bixiyeen waa wax wanaagsan al-Ghazali waa wax wanaagsan naanays wanaagsan weeyaan laakiin se Ahmed Gurey waxaad ogaataa inuu ahaa Soomaali inuu ahaa waxaa cadaynaya Ahmed Ibrahim Gaarane baa la oran jiray Ahmed Ibrahim Gaarane Ahmed Gureyna waa naanaystiis hataa nimankii la dagaalami jiray gureyga bacdama ay kari waayeen Ahmed Garam ay iska dhihi jireen Ahmed Garam ay iska Garham wax saas ay iska dhihi jireen waayo magacii ayay maartay dhawaaqiisii waa dhawaaq ku cusub oo afkooda aanan ku jirin haddaba Ahmed Gurey geesigaas Allah u naxariisto wuxuu ahaa geesigii boqortooyadii xabashida ka bixiyay geeyigan Soomaaliya ka saaray geeyiga Soomaaliya xabashidu way soo gashay waxay joogtay dhulkan la yiraahdo Awdal iminka loo yaqaano ay soo gaartay ilaa iyo Awdal bay soo gaartay bimacnaa dhulkaasoo idil koro idil way ka soo gashay ilaa Djibouti maxaa la yiraahdaa dhankan kale waxay ka soo gashay dhankii ku beegneed Looyacade waa dhowr jihoodi ka soo galeen
owdaloo dhan way wada camimeen ayagaa haysteen ayagaa ka talin jiray ujeeddada ee owdal uga talinayaan maxay tahay gaalada had iyo gooraale way hinaasaan waxay ka hinaasaan dad isku af ah isku dhaqan ah ee isku diin ah ayay ka hinaasi jireen waxay ka hinaaseen oo kale goobtaas inay baabi'iyaan sababtay u baabi'inayaan waxay ahayd masaajid waxa ku yaalla oo aad u barakaysan oo aad maaragtay u waqti dheer u cimri dheer masaajidkaasoo ah waa masaajidka labada qibladood leh qiblad intaana qibladda kacbada la jihaynin diinta islaamka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo qur-aankaba aanan lagu sheegin aanan la jihaynin ayaa waxaa loo tukan jiray dhankaa iyo baytulmaqdes ayaa loo tukan jiray kolkaa waxa uu ahaa masaajidka markii diinta soo gaartay ee laga dhigay diinteenna uu ku dhawaaqday ee rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu yiri qiblada waa kacbada aayado badan oo qur-aan ay ku soo degeen oo qur-aankana lagu sheegay inay kacbada tahay jihada oo muslimiinta ay u tukanayaan ay u jeesanayaan kolkaa qibladaasaa misna la sameeyey kolkaa masaajidkaas waxaa la odhan jiray masaajidkii labada qibladood lahaa marka dadkan gumaysiga had iyo gooraale waxooda waxa weeyaan inay diinta aad leedahay inay burburiyaan dhaqanka aad leedahay inay burburiyaan oo maaragtay kooda ay kugu beeraan axmed gurey wuu ka dhiidhiyey ciidan buu samaystay ciidan taabacsan ummadoo dhan baa taabacsanaydba maxaa looga guulaystay boqortooyadii gumaysiga oo xabashida ee la jiray weliba waxaa wehelinayey oo garab u ahaa iyaga gumaysiga nimanka la dhihi jiray bortugiiska ayaa u ahaa garab u ahaa maca bortugiiskooda waa la jibiyey ilaa ma addis ababa lagu dhowaado ayaa la geeyey kolkaasaa bortugiiskii soo xoojiyey ciidamadiisii oo qolooyinka le hadda iminka aanan la sheegin laakiin oo isla gaaladaas ah iyagana soo xoojiyeen oo reer yurub ka yimid maxay u xoojinayaan calashaan waxay u xoojinayaan dowladdan boqortooyadan kiristaanka ah ee meesha ka bixi rabto in ay caawiyaan ay guul siiyaan axmed gurey halkaas ayaa lagu jibiyey allah u naxariisto kolkaase waxay bilaabeen dagaal maskaxeed wax la yidhaahdo ayay bilaabeen axmed gurey 1506 ayuu dhashay sanadka milaadiyada wuxuuna geeriyooday allah u naxariisto 1543 ayuu geeriyooday dad baa waxay yidhahdaan 1507 1506 marka 1506 ayaa inta badan raajix ah loo badan yahay haddaba kolkii uu geeriyooday allah u naxariisto axmed gurey kadib ayaa waxaa bilaabatay dagaal maskaxeed inagu bilowday dagaal maskaxeed ma garanaysaa dagaal maskaxeed waxaa la yidhaahdaa in lagaa qabsado maskaxda dhaqankaada in aayar aayar loo baabi'iyo in loo baabi'iyo taariikhdaadii aayar aayar loo dhalan rogo oo si ayna ahayn loo qoro waxay bilaabeen inay taariikhda axmed gurey ay ka dhigaan inuu ahaa nin carbeed oo saldanadii cadal la dhihi jiray cadal marka cadal gaalada unbaa u qortay bugaagtoodii ku qoreen dadkeena badan inta badan waa iska dhaceen cadal mahayna awdal bay ahayd boqortooyadii awdal ayay ahayd marka cadal bay u qoraan waxyaabo badan oo qaldan oo qoraaladooda ay ku dhalan rogeen ayaa jirta sida maalan buurta surcad waxay ku qoraan buurta surad waxa la yidhaha surad af soomaaliga haddaan ka baarnay waan ka weynay suurad quraan way jirtaa suurad tii quruxda way jirtaa suuradda laakiin surad waa garan weyna annaga markaa surcad bay ahayd waayo taariikh marka la baarayo dadka deegaankana waa laga waraystaa dadkooda da'da ah waa laga waraystaa dadkooda maaragtay inta badan deganaa meesha goobta aad doonaysid inaad wax ka heshid cilmi baaris ka samaysid goobtaas dadkii weligood deganaan jiray ayaa kolka hore laga waraystaa marka waa surcad sidaasi lamida adal maahayne awdal bay ahayd saldanadii awdal ayaa la oran jiray oo gobolka awdal dhulkaasoo dhan ayaa awdal la oran jiray haddaba
boqortooyadii xabashida kolkii laga saaray dhulkaasi oo Axmed Gurey Allahu naxariista ku geeriyooday dhulkaasi Oromiya meel u dhow Addis Ababa u dhow ku geeriyooday ayay waxay bilaabeen sidaa iminka idiin sheegay waxay bilaabeen inay maaragtay dhalinrog taariikheed bilaabaan dhalinrog dhaqanka inay ku sameeyaan waxyaabo badan inay abuuraan haddaba taariikhdanada waa muhiim waa inaynu annaga aan urursanaa oo annaga aan raadsanaa haddaba wax taariikhdaasi sida loola dagaalamay waxaa markhaati kaaga ah iminka meel magaalada Diridhaba u jirta 12 kilomitir ee la yidhaahdo harla looma ogola nimankan baara taariikhda baara inay tagaan looma ogola oo anthropologist inuu tago looma ogola archaeologist inay tagaan looma ogola waxaana la sheegaa dadkii dhuumashada ku tageen oo magaalada caadi ahaan waa la tegi karaa oo magaalo iska furan open ah dadkii markay qarsoodidu wax ku baaray waxay soo heleen inay maaragtay halkaas degaan Soomaaliyeed ay tahay ayna ahaan jirtay way Diridhaba 12 kilomitir u jirtaa waxay kala soo heleen Diridhaba iyo Harla iyo Hararba inay isku dhiganaayeen isku hal magaalo wada ahaayeen oo boqortooyadii Imaam Axmed Gurey xoogooda ugu badan inuu halkaa yiilay oo xabashida lagu jibiyey iyo gumaysigii Boortaqiiska lagu jibiyey inuu halkaa yiilay Harla looma ogola archaeologist looma ogola anthropologist looma ogola waayo xaqiiqdii bay u tegayaan marka laakiin xaqiiqda waxaad ugu tegi kartaaba adigoo taga awdal taga ama meelaha u dhow taga si wanaagsan aad maaragtay dhulkaasi aad uga baarto weli raadkii uu jiraayo ma baabi'in marka insha Allah casharka intaasuu ku egyahay wixii su'aalo aad qabtaan maca kan ama kii hore intaba waad soo weydiisan kartaan waa idiin furan yihiin codka insha Allah inaad soo weydiistaan soo gudbistaan wax alla wixii weydiina aad qabtaan anna wixii warcelina insha Allah diyaar baan idin lahaa haddii alla yidhaahdo بروفيسور عني عشان أنهم سوق maxaa dhahday igu celi هذا ما سنت أقول سوى أنا عشان نوصل ديار السي هذا أنا كقبل يا شو وحن قعد سنة عندي سؤال يعني قاعد تتاجسوا سي أو هل عد